danab ayaa u daadatay kaymo ay ku dhuumaalaysanayeen horjoogayaal ka tirsan argagixisada. Haramcad ayaa soo gabagabaysay weerar ay argagixisada ku qaaday goobaha dalxiiska caasimadda. Ma ahe mas'uuliyiinta garsoorka ciidamada qalabka sida ayaa goobjoog u ahaa xukun lagu fulinayay maleeshiyaad ka tirsan argagixisada. haddaba ma jirtaa hab kale oo ay ula dhaqanto dowladda argagixisada? tabinteeda gaarka ah waxay daaranaan doontaa su'aashan jawaabteeda iyo weydiimo kale oo aad isweydiinaysaan. dudaye sababta uu ugu biiray al-shabaab waxay ahayd inuu ku furto aabihiis oo laga rabay wiil ay u isticmaalaan argagixisada qaska ay guud ahaan dalka ku hayaan. waxa uuna isaga tegay xirfadiisa xoogsiga ah si uu aabihii kaga xoroobo xariga al-shabaab. aniga horta hadaan runta ku sheego wiilgii shabaab inaan la shaqeeyo baan la jiro horta niyadii kuma soo dhacay ma fahanti anoo ka shaqaysanaa bay la xira xabsa la gelish waxaa la yidhi waxaa laga rabaa wiil wax la baro oo waxbarasho la geeyo xabsa la gelishay xabsiga hadda uyaan ku jiriyaan meeshaan aabba ku raacay sir aabba xirnay ma joogin kartid meel aabba ku xiran xaggan tagay waxaan dhaanay la jiraa aabba la fasaxo. qasaaye waxaa ku riixay saaxiibadiis ay dariska ahaayeen oo iyaga u madax jibaaliyay. waxa uu arkay inay tahay awoodda kaliya ee la dheeryahay ka mid ahaanshiyaha argagixisada. taasi ayaana asal u ah iska diiwaangelinta kooxda. aniga horta ururka al-shabaab markaan ku biiray dhalinyaro ahaan waxaa waaye aniga degmada aan joogay waxaa dhalinyaro badan oo meesha al-shabaab ku jiraan ay fasax ku soo qaataan magaalada una ku joogi jirnay ay dhalinyaradaas waxay gelinayaan dhalinyarada kale waxay dhahay jiraan niyaw dhalinyarada idinka waxa waaye meeshan guri joogto ma fiicana dhalinyarada waa way duurka ay joogtaa dagaalamaysa ilaahay dartiisa u dagaalamayaan waxa waaye arintaas ma ka soo qayb gashaan idinka dhalinyaratiin markaas aniga fikradaas waa ku qanacsanaay waa ku biiri dhalinyaradaas. maamada Raamole waxay kaga jawaabtay 3 dalab oo al-shabaab kaga yimid ee kala ahaa ama xoolo ama iibinta qoraga AK47 ama wiilkeeda Raamole inay ogolaato mid. laakiin Raamole waxa uu ogolaaday inuu ku biiro al-shabaab isagoo isla halagaaga heebeysta al-shabaab dhexdooda oo xilliba kis kaga qaadaya mirihii beeraha ee u baxay iyo xoolahooda magaca zakada. marka hore waxaan ahaan jiray beeraley maamada beero la tacbi jiray beerahaas lagu joogi jiray weli nidaam ku dhicin macna shabaab inta galo maalin kamid ah ninka tuulada imaado hooyada oo imaado wuxuu yiri lacag keen ama hal cunug keen ama qori keen jihad ku kaalmaysid hooyadii ma awoodin inta qori gatid ama inta lacag bixiso marka waxa la hadii adiga lacag bixinayna qorina gadi karin anigu ina dhiibtaan anan ku qanacsanayna intii macna shabaab galo ku qanacsanay dhibaato darteed oo galay waxa ku jiri 8 sano. oday karaaya waxa uu ahaa maleeshiya hore ka macaashka shaqada noocaasi ah ayaa ka gashay ku biirista al-shabaab. waa balex caruur mana ka suura gashay in lagu qanciyo sida dhalinyarada kale aqaraaya u shaqaysanaysa. waana sababta buddiga u ah ku biiristiisa argagixisada. waxaan raacay al-shabaab waxaan kamid ah al-shabaab askariyan ahaan jiray waxaan ahaan jiray xisbo waxaan ku biiray 2017 waxaan ka tagay 2016 intaas waxaan iska dhex joogay anoo la shaqeynay. Ninile waxa ku ximbaaray ku biirista argagixisada diinta uusan faham fiican ka haysan loona sheegay in loo nusraynayo diinta islaamka mana ka arkin maladiisa halkaas. aan ku soo maray marka anigu marka hore aan raacayna anoo macnaha ii sheegay marka hore iska daciiraa haddana diin macnaha ii sheegay sidaas aan aadna u baran iyo horta igu kadiyeen igu gaadeen wax kale ma inaan ku raacin la iguna soo gambaday diin gaabinidaas awgeed marka meesha aan tagayna diin baad baranaysaaba marka hore la igu yeeray wax aan hadda ka faa'iido ama aan bartayna habeeraatay ma jiraan. xaggaas anigu macnaha ii sheegay horta wax diin kumaanan arkin macnaha qofkii inta ku imaaday ilaahay ka cabsi ku leeyahay isagana xumaanta kaaga horeeyo baan ku arkay
ku nabigana kaaga horreeyey baan arkay inta markaan imaado marka anigu waan fahmay wixii xaggaas ka jiray jawiga aan ku jiray iyo jawigan waa isu qiimeeyey waa nolol iyo meel cidlo ah haddaanan macnaha ii sheegay haddii ilaahay laga cabsanayo alla ka cabsi loo hadlo waa nolol iyo meel cidlo ah sababo kale oo aan ka fogeyn inahaas ayaa loogu biiraa kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab iyo daacish laakiin qofka inuu isaga tagaa al-shabaab kana yimaadaa fikirkooda waxaa sabab u ah ku tagrifal awoodeed oo gaarsiisan dil ama ciqaab dhimasho dhaanto oo ay kooxdu geysato Sugaye ayaa ii sheegay isagoo ku jira Sarandi oo ah xarunta dhaqan celinta isa soo dhiibayaasha ka yimid argagixisada tacadiga al-shabaab ay kula kaceen maleeshiyadooda ama dhalinyarada kale ee ku nool goobaha ay ku maamulaan maquuniska dhuumalaysiga ah adiga ilaahay hada ka cabsanayna bani'aadamka laga cabsanayo kullay waxa way waxyaalo oo lagu dhaqmi jiray oo waxa way la diiday diin ahaan hada ku dhaqantiin hada caadiska ah oo waa iga diidayna dantooda ku jirto oo saas loo diiday iska jirto oo dadka lagu adaadinayo waxa kamid ah waxa way haday oo lagu arko oo hada memory la dhageysanano ninkan waxa way dambigiisa ilaahay ku xisaabtamo memory la hadii lagu arko waxa way alle guri booshkid laga gadaa memory bes oo haysa dambigaas ma bani'aadamka ku leh ilaahay ku leh moogta ilaahay ka gashay laakiin hadii lagu arko waxa lagu dhahaa guri booshkid haye ya dad badan weliga arkay jiray dadka waxa kamid ah oo bilwad la sigaarka abay mustawaka meelam ninkii mustawaka lagu arko ama sigaar lagu arko sidaas oo kale sin guri boosha laga qaada waxa way tawaakada badeena ku soo qaatay markan moogtahay adna guri boosha laga rabaa intaas bes waxa way Ninile waxa uu iga sheekeynayaa sida saaxiibkiis uu ula nool yahay ciqaab ay al-shabaab u mariyeen sheeke isaga iyo kooxiisa soo dhiibayaal ah dhaxmartay tooyinka ayaga ah oo aan ku arkayna waxa kamid aha waxa igu darnaa in kasto dhibaatooyinka aan soo koobi karin waxa igu darnaa nin hadda ka hore meel aan iskala tirsanaa jirnay ayaa ninka isaga aha nin soo dawladda soo galay oo dawladda qaabishay isagoo ka sheekeynaya ragga dhexdiisa lagu maqlay ninka isaga horta siniyo bani aadanimo loolama dhaqan si islaamnimo ku jirtana loolama dhaqan ninka isaga in la soo qabtay la figeeyay qola abni la yiraahdo nimanka indhaha duuban ah kuwa macnaha ii sheegaan ilaahay iyo rasuulkiisa midna aqoon tuuga ayaa macnaha inta qabteen meel inta geeyeen fig loo xiray ninkii bir baa dabka loo gashtay birtaasoo dhinacan firaha inta lagaga soo taagay dhinaca kale lagaga bixiyay oo sida iyada loola tuuro rag yaqaanada ninka isaga waa joogan rag badan oo yaqaanaa jira dhibaatada ayada hayna ninkii macnaha ii sheegay sida iyada markaan anagu arkay hadii ana awal ma dhiman ma uusan dhiman ninkii ilaahay baa badbaadiyay anigu markaan ninkii isaga ahaa isagoo ka macnaha ii sheegay ka baxay isna macnaha ii sheegay jooga igu dambeysay aniga qasaye waxa uu cunteem weeday inuu fiirsado in 3 loor oo sisin ah mid kamida looga qaado hooyo Soomaaliyeed magaca Islaam ee Zeko laakiin ka tagistiisa kooxda waxa ay sii dhashay in xitaa loo ciqaabo qoyskiisa shacabka ay dhibaataysanayaan waxa way lacag ay ka qaataan waxa way sisin oo 3 loor haday helaan shacabka ay shaqaysanaan dhididkooda ay korfaadaan 3 loor yakay ka qaadan jiraan 1 loor 3 loor hal laga bixi maxaa soo haray 2 loor dheh waxa way dhibaatada horta shacab dhibaato badan ay ka hayaan arintaas inta dawladda ay ka hortagtaa fiican dhibaato way geystaan waxa way haddaan dawladda isku soo dhiibay ay dhibaatay oo familkay dhibaato gaarsiin sidee aniga qori baan soo goostay al-shabaab qorigaas haddaan soo goostay familkay ay intay u tagaan ay dhibaateen 3 maalmood ay heran 3 maalmood ka baad isbuuc oo muddo sharci loogu qabtay oo sidii qoriyaha la soo gudaay oo ay gugutaan dhibaatadaas way xoolaha ay waxaas dhamaan ay ku qoonsadaan Dudaye oo al-shabaab u xirnaa dhowr iyo 40 cisho kadib ciqaab shakhsi ah oo maray
taasi oo ahayd inuu xerada ka dhuuntay idin la'aan ayaa isna ii sheegay in sababta uu ugu soo biiray Sarandey ay tahay taas isaga iyo aabihiisna hadda waxa ay ku nool yihiin dhulka ay dawladdu si isku filan u maamusho. waxbarasho nima waxaa ku dhahaya inaad jihado Ilaahay ka cabstaan raba madaxa asagoo yartiisu gol Mareykan u jira gol xamar u jira gobol la dib u raaxaysto waayaan asagoo meel aadima adigana wuxuu ku leeyahay inaad Ilaahay ka cabsado jadal raba adugu ma jihado inuu dhimo karto waxa ku dilaa qorto ku kasiha qaabkaas waayeen manuu laga bixi kara waxa darto meega badan waa sharci kama bixi kara in la yiraahdo habeen in la qabsada baarka laga qaraac saan biyo in meel la geeyo xirig lagu xiro faylo dhagax weyn la kor saaro la jeebiya yaan lagu rubiyaa la silsiladii bil amalan silsiladna laakiin diintu waan istaxumaana dib u koro in dad lagu dilo dad lagu dhibaateeyo dib u koreen Soomaali meel jito loo soo qarxiyo la waa gaalo aniga waa dhaw una naqad Raamole waxa uu ku qanci waayay xuural caynkan u sheegaya uu gaari cad ka wato iyo gabar uu u haysto ukhti nafta ku jeclaatay waxa uu Raamole horjoogihiisa ka dalbaday inuu ka caawiyo inuu guursado laakiin isgaabi ayaa jawaab looga dhigay waana sababta uu 8 sano kadib u hoos joogo harka dawladnimada 8 sano marka 4 sano joogay nin amiira u tagay waxa dhaniyo ani naaga rabaa mustaqbal rabaa intii waxa way ilmo dhala rabaa wuxuu ugu yiriniyo adiga janaa u socotaa 70 iyo laba horor ana hortaada jirto anduuyi maxaa ku faleysaa waxa dhay adiga anduunyada adiga naftigaada gaaricada ku socotaa ilma ku joogan ilmahaada waxa way waxbarasho ku jiraan marka aniga dhalinyaro maxaa ii diiday inta macnaha naag guursado ama horumar gaar maxaa ii diiday wuxuu yiri hadalkaada waa weeyniyo adiga hadalkaada hadal weyn waan wuxuu ii geli xabsi afartan biri ku jira xabsi ii geli hadalkaas dartiis marka waxa ogaaday bahasha inta macnaha isku shaqeysanayo macnaha meesha diin bataale ani meesha ku fahmay horta oo boojitay sheekooyin kale oo mala awaal ah ayaa looga sheekeeyay sida marin habaabinta fasilka dastuurka iyo isguursiga ragga dhexdooda ah maadaama uu ku noolaa kaymaha dhulka howdka cagaaran ee Maleeshiyada ku dhuumaalaysanayso horta soo dhiibitaanka horta shay macna fursad weyn waa intii soo dhiibtid waxa way aniga markii hore waa soo dhiibitaanka waa liga cabsiisay macna hadii soo dhiibtid meeshaas waxa way meel sharci ka jira maaha macna meel kutub lagu isku xukumo dastuur wax la isku xukumo dastuurka marka hadii adiga maanta daa dastuur qatarata lagu ninkan nin waay waa lagu mehersan karaa amala macna meesha taala leeyahay marka nin naftideeda aga baqay intii soo dhiibay imaado wariyo hadii laga helo ama lagu guursadaa taas oo liiday ku jirto ma fahanti marka ninkii waxa waaye oo waxa la talan lahaa intii soo dhiibaan waxa waaye fursadan ka faa'iideystaan adii lahaa aniga maxaa ka jira marka ku faa'iideystaan waxa sheegaysa ku jiraan ma ka jiraan waxa ka jira waxbarasho iyo waxa waaye si aad horumar u gaar lahayd oo bulshadaas la mid ahayd oo dhibaatada iska dhaaf lahayd waxa waaye muwaadin u naqan lahayd lagu la talinayo noloshaada waka meel adiga tagtay cuntadaada iyo lacag biil lagu siinayo ilmahaada macna biilka lagu siinayo oo hadana waxbarasho lagu siiyay buugag lagu siiyay yaani hooyada qaar inta laga helina laga yaabo waxa laga yaabaa waa dadka dayacsiin dadka waa ilmahooda hadda joogan jahiliyiin oo wax ka siinan laga yaabaa dad badan ay helin laga yaabaa marka fursadda inta lagu faa'iideysto muhiim ah wadakaraay waxa uu goosto inuu isaga tago kooxda laakiin meel dhaxo oo muddo ku qarsanaa waxa uu qatar ugu jiro dawladda iyo al-shabaab laakiin ehelkiisa ayaa ku caawiyay inuu maro nidaamka hubinta dib u midoobida bulshada waana sababta uu kaga yimid argagixisada marka waxa ugu cuslaatay inaan imaado xamar la xamar dawladda ay joogto ururka dawladna iska soo horjeeda markay ugu cuslaatay xaggana ay ka jirto dadkii fariistay in laga qabanayo qaraabadii markaan wareystay dhaqan celin jirta la ii sheegay dhaqan celintina meel isku soo dhaweynayo oo hal sano lagu jira oo ka bacdi laga baxo xor noqonaysan ay tahay haddaba celcelis ahaan inta u dhaxayso 17 bilood ilaa 36 bil oo u dhiganta sanad iyo bar ilaa 3 sano ayaa dadkan dib u habeen loogu sameeyaa fikirkooda la marin habaabiye ee ku dhisnaa dilka dadka kale iyo gaalaysiinta dadka aan ahayn argagixisada waxaa la baraa diinta islaamka
culumta asaasiga sida qorista, afkeenna, xisaabta, isticmaalka kombiyuutarka, farsamooyinka baabuurta oo 3 nuuc leh, caafimaadka sida first aid. waxay helayaan maktabad, garoon kubadda cagta ah iyo ciyaaraha wareegga. waa tuulo ay u dhammaystiran yihiin adeegyada asaasiga ah ee bulshada oo xitaa aad heli karto adeegayaal kuugu adeega sida dunida horumarsan. waxaad heli kartaa la talin caafimaad iyo daaweyn dhammaystiran. howshaasi oo dhan waxaa uga wakiil ah xukuumadda, wasaaradda amniga qaybteeda DRB, Defector Rehabilitation Program. barnaamijka dhaqan celinta soo dhiibayaasha DRB, Defector Rehabilitation Program, waxaa lagu talagalay dadka ama dhalinyarada ay maran habaabiyeen argagixisada, kuwaasoo runtii loo fidinayo fursad kale ay kaga faa'iidaystaan inay dib uga soo baxaan fikradaha khaldan ee argagixisadu ay u isticmaashay dhalinyarada Soomaaliyeed. barnaamijka wuxuu kooban yahay 5 tiir. tiirka ugu horeysa ah wacyigelin, oo in la wacyigeliyo ummadii loo sheego khatarta ay leeyihiin ururka argagixisada. waxaa ku xiga reception, oo ah soo dhaweyntii, in dadka la soo dhaweeyo si wanaagsan oo bil'aadnimo ay ku jirto. number 3 waxay tahay screening, oo ah qofkaani in la baaro inuu yahay in khatartiisa la baaro, inay khatartiisa yar tahay ama ay badan tahay. waxaa ku xiga dhaqan celintii, oo ah xarumihii lagu dhaqan celiyo dadkii ka yimid al-shabaab ee ah ururka argagixisada. waxay ka kooban tahay xarumaha waxay kala yaalin Xamar, Kismaayo iyo Baydhabo. kullina waxay helaan dhaqan celin dhammaystiran, waxbarasho, caafimaad, xirfado ku shaqaystaan, weliba lacag la siiyo dadkii ay ka soo tageen, iyo markii ay baxayaan in la siiyo lacago ay ku bilaabi karaan noloshooda. fursadaasna waa mid muhiim ka dhigtay in barnaamijkan uu soo jiito dad badan oo ay maran habaabiyeen ururka argagixisada. sidoo kale dadka fursadaha la siiyey ama la siinayo waxaa ka mid ah female-ka ama hablaha markaasi ka mid ahaa al-shabaab iyo carruurta, kaasoo iyadana lagu talagalay barnaamijyo u khaasa oo gaarsiiya heer ay dib ula midoobaan dadkoodii. waxaan rajaynayaa dadka weli ay maran habaabinayaan ururka argagixisada in ay ka soo baxaan. dowladda Soomaaliyeedna u diyaarisay qaabkii ay u soo bixi lahaayeen iyo nolol ka fiican midda ay hadda ku jiraan. waxaan rajaynayaa in dad badani ay ka faa'iideysan doonaan fursaddan. waxaan mahad celinaynaa dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda saaxiibada nahay ee ka dhigay barnaamijkan mid guul leh. dhammaan saaxiibada idiin muuqdo waxa ay macsalaameynayaan saaxiibadood, waana daqiiqadihii ugu dambeeyey ee dib ula midoobidda dadkooda iyo dalkooda. waxay ka tegayaan dugsiga Salaama oo Sarandi ku dhex yaala, iyagoo leh xirfado ay nolosha ku maareeyaan. waxaa ka mid ah makaaniknimada, ka mid ah gaariga hadda meesha oo geerisha haato meel oo waxaa cilad kastoo gaari ku timaado waa garanaa, hadda waa bartay. tan kale waditaanka leysan way kaas kan leysan way shahaadadeyda meeshana ku jirta, shahaadadeyda inta ku jirta. leysankeyga waa kan waay, waa ujeeda taas shahaadada dugsigaan kaga soo baxay oo darawalnimada waay. kolley taas leysankan waa ujeeda kan waay. waxaan kolley dawladda ay u caawisay kooda. waxaan bartay waxyaabo badan aan bartay. horta ugu horeyn haddii aan kuu bilaabo, markaan inta imaanayo horta anigu maanan aqoonin qoraalka farta Soomaaliga. si afka Soomaaliga looga hadlo waan aqaan, laakiin qoraalka Soomaaliga uu dhibahayay. waxbarasho kale iska badaay. markaan meeshaan imid
wallaahi wax weyn baan ka faa'iiday. Waxaan bartay Soomaaligii, waxaan bartay Ingiriiskii, waxaan bartay liturjista qaybaha dabka, waxaan kaleeto bartay computerkaasoo hadda aan isleeyahay macnaha ii sheegay aan ku shaqaysan karo. haddii aan maanta magaalada u baxo aan shaqadeeda helo aan ku shaqaysan karo. waxyaabo badan aan ka fahmay alxamdulilah. ilaahay baa ku mahadsan, gaar ahaan macallimiintayda ku mahadsan. marka waa intaa. marka lagu keenayo soo halaysan baaritaankiisa waxaad ka bilaabaysaa bateriga, kabacdi aad fiilooyinkii iyo asiga sii gudagalaysa. marka waa ku shaqaysan karaa maanta haddii aan tago magaalada, waxbuu shaqo uga anfacaya, waxaan bariiskay ku soo dhacsan karo oo ciddayda ku biilan karo. marka dawle iyo urur kala gacan dheere danaysta meeshaan dhaqan celintaa jirta soo mar processkaasaad u danaysataan saasaan leh. aniga Soomaali waa bartay, habqaan waa bartay, meeshan wax walba ku bartay. ugu shaqaysan karo faryaamo waxa bartay alxan af Soomaalina waa bartay, xisaab ma kasi jirin. hadda dib dukaan furto ama wax furto caadi waa ku shaqaysan karaa. alxan waa bartay, ganacsina waa bartay. hadda dib dukaan furto ama wax furto intii aanay ku ganacsan kara ama alxan hadii oo aanay furto caadi waa ku shaqaysan karaa. koox dhan oo u adeegta dhammaan isu soo dhiibayaasha iyo xafiisyo bulshada la xiriiriyay xagga shaqada ay leeyihiin. waxaas oo dhan dawladda ayaa u diyaarisay. ka warqab dawladeed iyo daryeelka reerahooda ayay haystaan, oo waxaa laga bixin jiray biilka cidihii ku tiirsanaa dhaqaalihii ay ku noolaayeen, walow aanu jirin gunno ee argagixisada siin jirtay, maadaama ay badi ahaayeen xisbo ama jabhado, iyo xoogaa xitaa ay ku abuuran karaan shaqooyin farsamada gacanta ah marka ay halkan ka tegayaan. wallaahi nolosha aan ka soo baxay nolol kale dadka dhan u jeedaba nolol fiican maaha. kale farxad iyo waxa ay nolol dareema inta dawladda ku soo biiray. meeshaan wax nolol fiican hadda xagga nolol kuma haysta ma ogtaa dib u horan yaayeen. dhibaatada waa u dhiiro qajac u dhiiri noloshiisa tii waxa laga yaabaa maanta xaaskiisu inuu ku kacsayn oo waxa uu hadii ku roon yahay siyaata inaan la argal yahay ma ogtaa. noloshaada iyo waxbarashadaada iyo waxa way farxad ku noolaanaysa oo familkaada lagu keenayo oo ilmahaada adiga is arkaysiin. inta imaaday waxa markii imaaday waxada wadid xun markan macallimo wanaagsan iyo agaasimo fiican iyo waxa way jiifkeeda cuntadeeda waxbarashadeeda helay. marka danaysta naftiina badbaadiye, nafta ummadana badbaadiye, processkan jirana soo mara si aan adigu badbaadaan la idina dhaqaaleeyo sida anaga noo dhaqaaleeyo kala saasan leh. halkan waa garoonka ciyaaraha ay ku ciyaaraan isu soo dhiibayaasha ka yimid fikradaha xajirka, waxaana iska leh xerada loogu talagalay isu soo dhiibayaasha ee Sarandi. goordha waxaa halkan ka bilaaban doona ciyaar u dhexeeya kooxaha DSU iyo SYL. waqtigooda nasiinada ee firaaqada halkan ayaan kala qayb galayaa jimicsiga. nala socdo. ciyaar caadi isku soo laba kala hadii wax ka horeey jirin. ya waqti dheer kadib halkan waxaa ku wada ciyaaray labadii kooxood aan idin sheegay ciyaartan ay ku bilaabatay DSU iyo SYL. waqtiga loogu talagalay ciyaarta labadaba waxa way isku mari waayeen, laakiin markii dambe waxay isugu tageen rigooro. sidaas darteedna waxay ciyaartu ku soo gabagabowday 4-3, waxaana ku badisay 4 kooxda SYL. DSU ayaa sidaas ku hartay. macasalaam. marka uu dhammaysto qofka xilliga dib u habeyntiisa togan, waxa uu sii jeclaystaa sii joogista xeradan. waxa uu leeyahay ilaalo gaar ah oo si dhow ula socota dhaqdhaqaaqiisa, hubinta bulshada inuu amni kula noolaado oo kale. inta uu ku jiro xeradan qofka isu soo dhiibaha waxa uu heli karaa xiriirka reerkiisa, la socodka dhacdooyinka dalka, fasax dabayaaqada toddobaadka mar, iyadoo oo ay la jirto ilku haynta booliiska. waxa ugu horeeya ee qofka ku jira xeradan uu maqlaa waa weedha Allah subxaanahu wa tacaala iyo ku hagidda fasirkeeda saxda ah. qof salaad ceshay jamaaco ku soo tukaday qofkii dhiiggiisa banaysta oo dila dimada ilaahay kuma jiriyo qofkaas, yani ballantii alluu ka baxay subxaanahu wa tacaala. wamaca daalika wuxuu dhihi jiray dimada ilaahay inaan ka baxa mar rabuu dhihi jiray asagoo faasiq ah oo dadka laayo oo la og yahay ayuu iska ilaalin jiray qofka cesho soo tukaday inuu dilo.
waxyaabahaas waxay noogu filan yihiin tusaalooyin waxaan ku soo gabagabaynayaa marka qodobka ah dadkii hore ee saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibi jiray oo lagu magacaabi jiray khawaarijta iyo kuwa maanta jooga sifaadka iyo tilmaamaha ay wadaagaan waxaan ka soo qaadan karaa oo kaliya inay iska ilaaliyaan waxyaabaha dhiigga ka hooseeya dhiigguna uu la fudud yahay waxa ugu dambeeya uu maqlaana waa wax ka barashada wadaniyadda iyo dowladnimada waxaan soo martay 9 madaxweyne 9kaas madaxweyne 4 madaxweyne waxay ahaayeen ku-meel gaar 5 madaxweyne waxay ahaayeen rasmi 5 rasmiga waa kuwe الله نحريسته هذا عبد العثمان عبد الرشيد علي شرباكي مدحويني محمد سياد بري مدحويني حاشم محمود iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo qiyaasta tirada ku dhawaad 3,000 ayaa ka qalin jabisay xerooyinka dhaqan celinta ee ku kala yaala Muqdisho Baydhabo iyo Kismaayo kororka isu soo dhiibayaasha kadib cafiskii madaxweyne farmaajo waxay korortay 17% isu soo dhiibayaasha dhalinyarada la qalday waxaan rabaa inaan u diro qolooyinka nala dagaalaysa qolooyinka dagaalka nagu haya ee al-shabaab mar kale waxaan u dirayaa waxaan idin leeyahay wiilasheenna tihiin waxaad qarxinaysaan waxaad leenaysaan waa walaalihiin waxaad burburinaysaan waa hantidiin waxaan idin siinay cafis mar kale waxaan idin siinay cafiskan ka faa'iidaysta waxaan ka codsanaynaa dagaalkani haddii uu sii socdo ma guulaysanaysaan waxaydan u guulaysanaynin shacab Soomaaliyeed kama adkaan kartaan ciidan Soomaaliyeed oo heegana kama adkaan kartaan caalamkana kama adkaan kartaan waxaa idin roon inaad qaadataan cafiskan idin fidinayno oo aad hub ka dhigtaan oo aad nabadda qaadataan oo aad qayb ka noqotaan dhismaha iyo mustaqbalka dalkiina iyo dadkiina ugu xarunta dhaqan celinta soo dhiibayaasha waxay diyaar u tahay inay caawiso cid kasta oo isaga soo baxaysa koox xag jir ah haddii aad doonayso in lagu caawiyo fadlan la xiriir taleefanka nambarkiisu yahay Ebril 19 23 41 Ebril 8 halkan waa Sarandi waa meel loogu talagalay dadka isu soo dhiibayaasha ah ee ka yimid fikradaha xag jirka ah maalmo kala duwan oo waqtiga ka mid ah ayaa halkan ku qaatay si aan idinku soo gudbiyo barnaamijkan gaarka ah runtii halkan qofka joogahay waxa uu ku nool yahay nolosha qofka bini'aadamka ah ee gurigiisa uu kula nool yahay suurtagalnimada qofka bini'aadamka ah inuu wax helaahay 100% macquul maaha laakiin wax u dhigmaahay waa inuu heli karaa marka aad Soomaaliya joogtana suuragal maaha xitaa 100% nolosha inay ku saamaxdo 75 inay suuragal ku noqotaa si caadi ah laakiin halkan waxaad wax ku baran kartaa sida caadiga ah qofka galaasada uga qayb galo waxaad heli kartaa goob aad wax ku cunto meel aad jiifato goob aad ku ciyaarto halkii aad ku cibaadeysanaysid waxa intaas dheer oo dadkan laga dhisaa lana baraa fahamka wadaniyadda iyo diinta guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa ee aan kaga hadlayay xarunta dhaqan celinta soo dhiibayaasha Sarandi ee Muqdisho inta ayaan ku soo gabagabeynaya